السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي والسلام يا ميل baa joogtaan waxaan rajeynayaa inaa caafimaad qabtaan qofka in la hadlayo waa Baasha Abdiqaadir Muuse channelka haddaa ku cusub tahay waxa weeye subscribe noo saar haddaa horey u joogtana waxa weeye waa mahadsantahay soo dhawow mar labaad waxaan rabaa caawa inaan ka hadlo market structure with price action saa la wada socotaanba maalintii u dambeysay waxaan soo dhigay poll baan soo dhigay groupka telegramka waxaan yidhi waxa weeye maxaan ka soo hadalnaa saddex waxyaalood baan filaya inaan soo dhigay waxaa inii sheegay waxa weeye waxa weeye qodobkee ka soo hadalnaa marka badankiin waxaad doorateen market structure with price action macnaha market structure-kii oo waxa weeye oo price action-kii lagu darayo marka price action-kii iyo market structure-ka haddaa isku isticmaashid waxaa kaaga soo baxaya meesha good entry lasku halayn karo 100% aysan wax baqdina adag ka qabin in waxa weeye trade-ka aad ku fashilmatid maxaa yeelay marka waxa weeye market structure-ka aad baratay xoogaa yaro baqdina laga yaabaa inay kugu jidho trade-ka ama waxa weeye kugu soo laabtaa inuu zone ama kugu cuskadaa suuqana waxa weeye waa zones iyo trade lines ba maanta oo ku soo celcelinaya marka in wixii aad isku dirsatid oo waxa weeye wax ku shaqeynaya aad ka soo saaratid baa loo baahan yahay insha Allah halkan waxaan rabaa inaan kula wadaago aniga khaas ahaan waxa ay shaqeeya oo aan price action-ka iyo market structure-ka aan u adeegsaday aan isku darsaday insha Allah waxa weeye waxyaalo badan waan rajeynayaa inaan soo dhigo oo ay ka mid tahay insha Allah scalping strategy-ga oo badanaa hadda waxa aragteen anoo groupka soo dhigayo goal 5 minute oo kale trade gareeya anoo in leh anoo mataqaanaa scalping iyo start oo kale soo dhigaya marka strategy-da waxa weeye aan adeegsado scalping-ka oo suuqa waxa weeye scalping marka tahay ku dhufo ka dhaqaaq weeye waxa inta waa gelaysaa waxa kala baxaysa already marka insha Allah waxaan rajeynayaa ayadana inaan la wadaago my scalping strategy insha Allah waa strategy waxa weeye waa hubaa 100% inaad ku faa'iideysaan oo suuqa aad magaranaysaa uga sameynaysaan faa'iido fiican laakiin caawa waxaan rabaa marka hore inaan ka hadlo price action with market structure ayadoo la isku darayo suuqii waxa weeye adoo market structure kusoo analyze garanaya baatanadii aad ka fiirin jirtay price market structure-ka fiirinaya in markaa soo heshid waxa weeye suuqa jihadiisa aad price action-ka imaanaysid price action-kana waxa weeye aad ka raadsanaysid intriga saxda aad ka raadsanaysid maadaama mar walba market structure-ka kale hadda ardayga adeegsanayo kale suuqba waxa weeye uu soo galaya halkan uu soo galaya impulse ba dhacaya flag aanu ka qaadanaya flag marka wuxuu ku leeyahay waxa weeye waa fast flag buu ku leeyahay laakiin waxa laga yaabaa meesha inaysan ahayn area-da uu suuqa ka soo daadanayo waxa laga yaabaa meesha in uu suuqa ka soo daadanaya barta hadda uu marayo laakiin zone uu ka koreeyo meeshaas hadhowna asagii waxa weeye waxa ku dhacaya halkaas uu ka soo galaya wuxuu leeyahay 1 iyo 2 iyo 3 kadib wax yar baa loo soo noqonaya oo lagu laabanaya zone-ka la soo cuskanaya stop loss kale oo dhufanaya kadibna waxa weeye waa la soo laabanaya marka in zone-ka aad iska ilaalisid mar walba waxa weeye wax ka qurux badan ma laha marka insha Allah halkan waxaan rabaa inaan kula wadaago price action-ka iyo waxa weeye saas ugu dari lahayd iyo market structure badanaa market structure-ka markaad waxa weeye aad suuqa analyze garanayso waxa laga soo bilaabaa weekly time frame ma ka bilaabaynaa kadib weekly time frame-ka badanaa waxaan soo sawirtaa waxa weeye meelaha key levelska waxyaalaha loo baahan yahay weeye intaa markaan soo sawirtay kadib waxaan fiiriyaa waxa kaliya suuqan meesha waxa weeye dhihi mayo halkaana waxa weeye laga soo 1 iyo 2 iyo 3 halkan ka baaranaya anu waxaan rabaa suuq meesha u socdo inaan raacabo inaan dhan walba oo suuq waxa weeye u aadayo inaan aado hadda ku muuqata halka markaa ka heshay tiran oo kale meesha double top bottom ay ku ahayd waxa kaliya adoo meeshan waxay ku ahayd area adag bay ku ahayd oo suuq horay u soo jabiyay waa meel suuq uu ku sameyn karay retest uu ku sameyn karay meesha markaa waa iska ilaalinayaa haddii aan halkaa meesha inta suuq waxa weeye buy uu ii soo aado oo halka uu flag ku galo flagaas ma qaadanayo flagaas maadaama zone-ki la joogo waa in marka hore zone-ka la ii clear garaya retest la isiiya ama flag meesha lagu galaa retest wuxuu noqon karaa mid laba wax uu noqon karaa mid inta meel lagu jabiyo waxa weeye lagu soo laabto rejection aad ka heshid waxa la dhahaa weak rejection isbaa la dhahaa kadibna waxa weeye asii qaadi ama in waxa weeye suuq ii jabiyo meeshii markuu soo laabanayo qaab waxa weeye uu igu soo laabto flag oo qurux badan waxa weeye kadibna uu saabay ku aado ama tu suuq waxa weeye meeshii ii jabiyo in waxa weeye ku soo laabto haddana mar labaad ka kaco marka dambe waxa weeye qaab correction ugu soo laabto marka maxay noqonaysaa waa flag sidoo kale maxay noqonaysaa double bottom ay noqonaysaa kadib waxa weeye marka aan saa ku qaato marka waxa kaliya adoo halka marka inta ka heshay suuqina aad soo ogaatay in la joogo suuq uu sameynayo 1 iyo 2 iyo 3 1 iyo 2 iyo 3 waa maxay waa soo analyze garanaysaa suuqii market structure baa soo analyze garanaya halkan waxa u jeedaa 1 iyo 2 iyo 3 halkan maxaan u jeedaa 1 iyo
to halkaas area waxa weeye oo meel suuqu false break out weeye halkaas ay noqonaysaa meesha saxda ah marka waxa weeye suuqu wuxuu sameeyay market structure-ka aanu adeegsanaya 1 iyo 2 iyo 3 mar saddexaad soo taab marka haddaan rabo waxa weeye meesha inaan risk entry ka qaato risk entry yes waa ka qaadan karaa haddii kalena maxaan sugayaa badanaa anagu saan sugno maadaama meesha lagu keenay qaab aggressive lagu keenay candles waaweyn ay soo dhaceen waxaan sugayaa waxaan soo qaadanayaa waxa weeye zone-kayga soo qaadanayaa zone-kayga maxaan dhiganayaa meeshaan maadaama ay ahayd meel hore loo jabiyay zone-kayga dhiganayaa marka maxay la mid tahay haddii suuqu meeshaan maadaama uu soo jabiyay already waxa weeye wuxuu joogaa double bottom buu joogaa in suuqa halka laga celinayo waxa ku cadeynaya double bottom buu joogaa laakiin waxa macquula maadaama area adag uu soo jabiyay inuu suuqu ku laabto kadibna waxa way ka soo daato laakiin maxaan sugayaa aanuna iswaalin ba waxaan sugayaa suuqu in meeshii uu ii jabiyo kadibna waxa weeye last loogii u dambeeyay oo la soo jabiyay mar labaad kor loo jabiyo kadibna waxa weeye lagu soo laabto retestiga aan ka qaato kadibna waxa weeye aan saabay u qaato marka ma saasan ku qaadanaya retestiga kaliya ku qaadan mayo retestiga markuu soo dhaco maxaan ka fiirinayaa hadda inta inii sheegayo oo ah weak rejections meesha inuu ka dhacay in meesha waxa weeye markii saa loo baxay lagu soo laabanayay xoog lagu soo laabtay kadib rejections helay iyo engulfing kadibna waxa weeye candle confirmation aan ku qaato ama meesha markii la ii soo jabiyo in qaab correction la iigu yimaado kadibna waxa weeye halka aan candle iska fiiriyo ama aan ka fiiriyo 1 iyo 2 iyo 3 caadi aan saa u dhigto aan ka fiiriyo kadib aan sugo trend line-ka intuu ii jabayo last waxa weeye loogii u dambeeyay waxa weeye qaab waxa weeye saas oo kala ah lagu soo laabtay test lagu soo laabtay trend line-ka la jabiyay plus zone-kii kadibna waxa weeye aan saabay ku qaato ama waxa weeye in aan double bottom ama adiga pattern meesha ka fiiriyo oo ah saa inta loo kaco lagu soo laabto laga kaco mar labaad lagu soo laabto marka waxay noqonaysaa area strong ay noqonaysaa marka inta marka heshay inta marka helay waxaan sameynayaa zone-kii soo dhigo zone-kii waan iska qaaday aan filayaa zone-ka soo dhigo kadib waxaa sameysaa waxaad tegaysaa daily time frame baad tegaysaa daily time frame-ka waxa weeye meesha waxa weeye aan ka fiirinayo suuqa meesha wuxuu ka sameynayo waxa ujeedaa hadda meeshii qaab noocee lagu yimid qaab noocee ah oo meesha lagu yimid qaab waxa lagu yimid waxa weeye falaag caadi ah lagu yimid kadib meeshii markii saa loo yimid waxaa sameynaysaa waxaa fiirinaysaa weak rejections baa fiirinaysaa in horta meesha ay ka dhaceen yes meesha waxa weeye buyers baa suuqi soo galay waana la soo jabiyey already waxay ahayd area strong ah bay ahayd markii hore laakiin markii dambe waa la jabiyey laakiin waa lagu soo laabtay markii lagu soo laabanayay qaab noocee lagu soo laabtay qaab waxa weeye falaag ah lagu soo laabtay qaab falaag ah lagu soo laabtay qaab falaag ah markii lagu soo laabtay waxaan fiirinayaa meesha interim laga geli karaa meeshaas interim laga geli karaa meeshaan waxa weeye meel waxay ahayd structure suuq wuxuu sameeyay head and shoulder ku muuqanaya price action ka waxa la rabaa wax walba suuq uu ku tusayo inuu trade gareys halkan suuq muxuu iga tusay halkan suuq wuxuu iga tusay waxa weeye head and shoulder buu iga tusay head and shoulder ki suuq waa soo jabiyay head and shoulder maadaama uu tusay suuq head and shoulder waa soo jabiyay markuu soo jabiyay waxa macquul ah in lagu laabto oo laga soo daato marka anna waxaan rabaa lacagta inaan buy u galo marka meeshaan waan ka baqayaa ma gelayo halkan buy ma gelayo waxaan ka baqayaa testiga kadibna in lagu soo laabto marka waxaan fiirinayaa suuqu inuu structure ka jabiyo oo ah halkan oo kale waxa weeye waxa u jeedaan halkan oo kale trend line baa ka dhacay halkan trend line baa ka dhacay 1 iyo 2 iyo 3 baa ka jira week rejection ka marka fiirisid halkan la labo mid saddexaad 1 iyo 2 iyo 3 baa ka dhacay waxaan filayaa 1 hour ka hadaan tago inaan si caadi oo arkarno oo 4 hour kan ka wada 4 hour kan one day baan joogay 4 hour ka hadaan tago waxa weeye inaan si caadi ah oo qurux badan meesha u arkarno ujeedaan baan filayaa suuqu meeshaan wuxuu ka sameeyay meesha suuqu wuxuu ka sameeyay adiga waxa rabtaa intiri aad isku haleyn kadib halkaan uu suuqu ka soo laaban karaa iyo waxa weeye batatan waxa maragtay waxaan rabaa suuq inaad tiraahdo halkaas soo aadaya uu ka soo laabanaya ma rabo meeshaas ka soo laaban karaa waxaan u dhahayaa waxa weeye meeshaan ka soo laabanaya anigu waxaan rabaa intiri aan isku haleyn karo 100% meeshaan uu ka soo laabanaya hadaa iraado waxay la mid tahay head and shoulder la soo jibiyay waa lagu laabtay waa laga soo daadanaya laakiin maxaan sameynayaa waxaan rabaa in aan meesha ka galno waxaan sameynayaa tabti hadda intiri aan ku raadsanayay oo kale baan sameynayaa price action market structure-kii baan adeegsanaya halkan waxa iga muuqata trend line caadi ah meesha iga muuqata trend line 1 iyo 2 iyo 3
trend line kan kalena waa in la jabiyaa maadaama suuqu trendy uu ku socdo trendy waxa la is your friendly trendy waa saaxiibka weey asaga ku hagaya marka hadda maxaa aragtaan meeshii aan ka baqayay wala ii jabiyay kadib markii la ii jabiyay maxaa dhacay sidoo kalena waa in la ii jabiyaa zone kan waa in la ii jabiyaa marka structure baan adeegsanaya sidoo kalena zone baan ku daraya haddaan halka ka war ka qaadan lahaa waxa weeye aan dhihi lahaa meelahan kale aan seel ka qaadan lahaa ama buy ka qaadan lahaa waa khalad suuqa kugu laalaaban kari marka meesha marka la ii jabiyo suuq waxa weeye barta uu ii jabiyo sidoo kalena zonekii aan ka baqayay in laga soo daato waxa weeye dib loo jabiyo oo lagu soo laabto weak rejectionsna ay hesho weak rejectionska waxa weeye waxaan filayaa I think oo ujeedaan waa kan dhalo kadibna waxa weeye kanal buy oo galfna qurux badan baa ujeedaa kadibna waxa weeye suuq saas u buy ku aadaya waana the best waxa weeye strategy oo waxa weeye suuqa aad lacag fiican kaga samayn kartaan maxaa yeelay marka structure-kii waxaan kusoo analyze garanaya 1 iyo 2 iyo 3 haddana waxa weeye price action baa suuqii ku gelaya waa meeshan waa la ii yimid waa sax halka waa ka geli kare laakiin maxaan rabaa waxa weeye meesha saxda suuqa laga geli karo halka haddii rabo risk entry waa ka qaadan karaa it's up to you laakiin entry-ga 100% isku halayn kara waxa weeye markii area-yadii last waxa weeye meesha u dambeysay zone-kii adkaa oo suuqa laga celinayay waa la soo jabiyay waa lagu laabtay waa laga soo daatay saas lagu sii socon karaa marka waxa loo baahan yahay inaad samaysid ina waxa weeye iska ilaalisid meeshaas oo markii saa loo jabiyo lagu soo laabto tastiga aad ka heshid tastiga hadda aad ka heshay baa haddii 1 hour time frame-ka aad sii tagtid baad meesha waxa kasii fiirin ka dhaa meeshaas ayaa waxa kasii fiirin ka dhaa waxa weeye waxaad kasii eegi ka dhaa ma garanaysaa patterns-ka hadda inta aad ka heshay korba intaana kasii heli ka dhaa 5 minute time frame baa xataa kasii raadin ka dhaa marka halkaas waxa weeye ka gashay intee ka cunto waxa ka cunto waxa weeye waxa ka cuntay 500 oo baa ka cuntay stop loss-kaagana waxa dhigatay stop loss-kaagana waxa dhigatay kana kala dhigatay shan oo kale kadibna waxa weeye intaas ka cuntay inta marka ka cuntay haddana maxaa suwaysaa waxa suwaysaa suuq muxuu abuuranayaa trend line buu abuuranayaa suuq muxuu abuuranayaa trend line buu abuuranayaa oo trend line ku waa maxay daily time frame ka tag suuq mar walbo impulse correction uu ku sameeyo already trend line baa abuurmay oo maxaa geysanaysaa impulse iyo correction markuu suuq ku sameeyo maxaa abuurmaya trend line baa abuurmaya halka uu jeedaan trend line baa abuurmay qurux badan trend line qurux badan baa abuurmay kan hadda inay ka dhalido si qurux badan kaga dhalido lacag kalena waa inuu ku tusayaa insha Allah hadii lahaydno suuqa waa uptrend baan suuqa marka structure ahaan maxaan ka sugeynaa marka structure suuqa waxaan ka sugeynaa waxa weeye in 90 rule percentage kana loo tago sax marka maxaan isweydiinayaa waxaan sameynayaa trendigaas aan rabaa inaan raaco waxa dhaaya suuqan maadaama halkan uu ka sameeyay zone-ka waxa weeye maadaama uu sameeyay suuqan uu sameeyay impulsive uu sameeyay high buu abuurtay kadib another impulsive uu sameeyay marka maxay ka dhigan tahay high hore waa la jabiyay zone-kana calaamadsanaysa zone-kan ayaa calaamadsanaysa ilaa weak rejection-iskiisa dhiganaysa kadib waxa dhahaysa waxa weeye suuqu meel adag buu ii jabiyay meel adag buu ii jabiyay kadib maxaa sugaysaa testiga sugaysaa oo halkan trend line-ka imisa jeer buu suuqu taabtay mar koowaad buu taabtay mar labaad buu taabtay trend line-kaas ku abuuraya maxaan sugayaa marka aan waxa weeye buy u qaato waxaan sugayaa suuqu in uu trend line-ka igu soo laabto trend line-ki waa la jabiyay Soomaaliyeed waxa ka wada zone-ki waa la jabiyay oo lagu soo laabtay markii lagu soo laabanayay hal mar baa waxa test lagu sameeyay zone-ki iyo trend line-ki hal mar waxa weeye waxa lagu sameeyay test kadibna waxa weeye buy waxa ku qaadanaysaa ma iska qaadanaysaa waxaad tagaysaa 4 hour ka tagaysaa 4 hour ka ayaa tagaysaa insha Allah time frame walbana waxa weeye saas oo kale weey ilaa 1 hour iyo 5 minute baa socon karnaa meesha marka waxaan rabaa inaan buy ka galo waxaan fiirinayaa market structure-kii baa suuqa ku soo analyze gareysanaya halka waxaan garanayaa barigii waxa weeye lacagta ay soo dhacaysay dad badan halka fast flag ka sugayay laakiin fast flag-gan maxaa loo baahan yahay inaad tiraahdo waxa loo baahan yahay inaad tiraahdo zone-ka suuqa hadda maraya waa maxay zone adag buu suuqii marayaa fast flag-na halkan ka raadinaysaa marka ma iskeenaysaa ma isma keenayso marka meesha maxaa ka dhacay meesha waxa ka dhacay trend line-kii baa test lagu sameeyay sidoo kale waxa weeye zone-kii baa test lagu sameeyay 4 hour ka tagaysaa halkaas waxa rabtaa inaad entry ka gashid entry-ga ka raadsid entry-ga si u raadsanaysaa marka seebaad entry-ga u raadsanaysaa
entry waxa u raadsanaysaa inta lagu soo baray marka structure lagu soo baray adeegsanaysaa waa maxay hadda halka marka structure ahaan hadda u fiiri sidoo kale atiraahid marka structure baad meesha u fiirinaya maadaama anagana meel area adag ay noo ahayd waxa ku qaadan lahayd horta waaba marka structure meeshaas marka structure ma qaateen waxa yaray impulse way arkeen waxay sugayeen meelahan kale fast flag marka structure waa adeegsanaa laakiin sidoo kale wax baan ku darsanaa marka halkaas oo kale 1 iyo 2 iyo 3 waa lagu tagay bay sii fiirinayaan laakiin trailing baa la joogaa zone bar test lagu sameeyay trailing baa waxa way mar labaad la taabtay bay baan ka sugayaa lacagtaas marka maxaa lacagta ku galayaa waxaan ku galayaa halkan waxa weeye maxaa u jeedaa weak rejections baa u jeedaa sidoo kale waxa weeye meeshan meel hadda trailing ka u saaratay meeshan oo kale trailing baa daasa u saaratay oo soo qaadatay trailing kaaga trailing ku soo qurux badan waxa kugu saari maayo markaan kale maxaa loo baahan yahay markaan kale waxa loo baahan yahay meeshaas inaad ka sii fiirisid patterns suuqa u bay ku aadi karo wana hour ninkii si aad waxa weeye meesha entry uga qaadid maadaama trailing iyo zone waxa weeye la joogo waxa u jeedaa meeshaas in structure aad u qurux badan uu ka dhacay structure qurux badan oo ka dhacay waa maxay meesha horta waxa ka dhacday mar koobaad pattern baa ka dhacay here shoulder marka halkaasaan ka galayaa ma galayo waxaan ka galayaa in waxaan yiri markii hadda markaan sharaxayo waxaan yiri suuq markuu meel waxa weeye ka sugaysid ama waa inuu kugu yimaadaa qaab noocan oo kale ah falaaga kadibna waxa ay qaata ama in uu caadi intuu u yimaado rejections u sameeyaa kadibna bay ku qaata hadii kale suuq uu meesha ku yimaado qaab structure uu ku yimaado kadib laabto mar labaad ku soo laabto waxay noqonaysaa meesha area adag oo double bottom ku noqonaysaa marka maxaa loo baahan yahay markaan oo kale waxa loo baahan yahay trailing wuxuun baa meesha ka raadinaysaa in lagu jabiyo ama zone last waxa weeye last lower high in la cuno suuq maadaama siiqada uu ku socday lower low lower high uu ku socday horta in la cuno sidoo kale consolidation ka waxa weeye meesha laga saaro consolidation ku waa kan oo jeeda consolidation ka saaranaysa marka u saaratid sidoo kale maxaa saaratay sidoo kale trailing kan waa saarat trailing kan waa la jeeda trailing waa la hadaa rabtid trailing kaas uma baahnid laakiin zone ka waxa weeye in lagu jabiyaa suuysa kadibna waxa weeye zone ka markii saa loo jabiyo test lagu sameeyo oo jeeda zone ki waxa weeye waa la jabiyay xageer test lagu sameeyay last waxa weeye meesha suuq jabin waayay oo lower high ahayd baa la jabiyay waa lagu soo laabtay markii lagu soo laabanayay maxaa lagu soo laabtay xataa hour ka hadda sii tigto kale oo jeeda ama hour ka hadda joognaaba qaab waxa weeye falaaga lagu soo laabtay oo jeeda qaab falaag halkaas waxa weeye risk entry ka qaadanaysa kan confirmation waa u jeeda kan confirmation waa hash toos waa u qaadanaysa istiraatiijiyada waxa weeye waa in 100% ka faa'iideysanaysaan kadib haddana intii oo kale aan ku tusaa fiiri trailing haddana mar kale la taabto halka miyaan ka gelayaa halka waa ka geli karaa laakiin waxa weeye waa 100% ma hub maxaa raadinayaa waa isla trailing ka doogo zone ba iska fiirinaya yes zone ma iska fiirinaya trailing waxa geey taagan yahay dhahaya trailing hadii zone uu staagnayn oo meel ila trailing oo zone uu isla taagnayn may waxa weeye trade-kaas waa iska ilaalinaya وجدان impulse baa dhacay lacagtii hadeer si qurux badan baa lagu aaday hadeer oo ka faa'iideystay tirano kale intaas oo ka faa'iideystay long position ma qaatay lacagta inta ratid baa la socon kartaa istiraatiijiyada marka istiraatiijiyada sonis marka isticmaalaysid 400 oo bib 300 oo bib baa ka qabsanaysaa kadib haddana waxa eegaysaa daily time frame ka haddana fiirinaysaa oo kale ama daily time frame ka wada xataa uma baahnid waxa u baahan tahay inaad fiirisid 4 hour ka daarti imaanaysaa wax weyn ma aha 4 hour marka timaadid baa fiirinaysaa suuq waxa weeye wuxuu sameeyaa ka eegaysaa meesha suuq wuxuu sameeyaa waa maxay suuq wuxuu sameeyaa waxa weeye meesha haddana trailing marka la itaabto markaan waa ka cunay marka la rabana ka cuno waxaan fiirinayaa trailing ka maxaa la taagan zone baa la taagan zone adag buu taagan yahay halka miyaan ka qaadanayaa rejections ka waa ka qaadan karaa yes laakiin marka structure ahaan waxaan fiirinayaa meesha qaab nooc lagu imaanaya one hour kan tagaya one hour ka markaan tago one hour ka maxaa uga jeedaa aan si fiican u soo dhaweeyo soo qof walba waa arko one hour ka maxaa uga jeedaa meesha in lagu yimid qaab waxa weeye
1 iyo 2 iyo 3 caadi ah ama qaab adiga descending muhiimadu ma aha dad waxa arkaysa 1 iyo 2 iyo muhiimadu meesha waxa weeye correction hadii lagu yimaado meeshana waxa weeye area aad ka sugaysay by hadii correction lagu yimaado hadaa la rabo xataa 1 iyo 2 iyo 3 lagu imaan mayo weak rejections baa lagu imaanaya meeshii hadda waxa weeye halka by waa ka qaadan karay bartaa waxa weeye by waa ka qaadan karay areada laakiin waxaan sugayaa in mataqaanaa suuqu intuu ii sameeyo trend line-ka meesha iga abuurmay maadaama suuqu uu sii daadan karo in la ii jabiyaan sugayaa kadib waxaan soo dhiganayaa sidoo kale zoonka aan ka sugayo suuqa inuu jabiyo zoonka suuqa aan ka sugayo inuu jabiyo waa maxay kan waa dhigan kartaa laakiin zoonka caadiga ah oo suuqu meesha uu ku laalaabtay waa xagee waa meesha test uu ku sameeyay areadan weeye markaa rabtid inaad entry ka gasho maxaa yeelay halkan u jeedaan suuq waa ku laalaabtay kadib uu jabiyay uu ku soo laabtay markuu ku soo laabtay waxa weeye saas waxa weeye suuq wuxuu ku aaday bay ku aaday intaana waa ka faa'iideysan lahayd maadaama ay tahay zone adag waxaa laga yaabaa xaggan inaad dhahdaan zone laftigeeda laakiin areadan waxa weeye meesha saxda oo zonka noqonaysa bartaan bay noqonaysaa bartaan ayay noqonaysaa waana ujeedaan test baa lagu sameeyey test markii lagu sameeyey kadib waxa weeye saasa waxa lagu aaday bay lagu aaday marka istiraatiijiyadan waxa weeye waa istiraatiijiyad la isku halayn karo 100% waa istiraatiijiyad la isku halayn karo adoo marka structure-kaaga isticmaalaya haddana waxa weeye in aad ka faa'iidaysatid hadda waxaan fiirinaynaa lacagtan fiiri maalintii u dambeysay GBP USD 1 hour baan joognaa Soomaa 1 hour ka aan joogno waxaan ku tusayaa fiiri trend line baa meesha ku jira ujeeda ma filaya trend line-ka waa la jabiyay laakiin qaab noocee lagu jabiyay qaab waxa lagu jabiyay de correction ah qaab correction ah kaamaba qaadanayaba correction-ka waxa weeye sell uma qaadanayaba maalin horaan ka hadlo waxaan iri markii la jabiyay trend line-ka sidoo kalena waa in at the same time la jabiyaa zonki meeyay waka zonki meel la jabiyay haddii halka la ii jabin lahaa trend line-kaas iyo zonka la ii jabin lahaa marka waxa weeye waa qaadan karaa oo irtasigaasaan sugayaa waa qaadanaya laakiin hadda tan way isbedeshay maxaa hadda tan u qaadan lahaa tan bay baan u qaadan lahaa maadaama zone ay tahay trend line la joogo waxa weeye lacagta waxaan u qaadanayaa bay baan u qaadanayaa 15 minutes oo kale aan tagayaa meeshaas waxaan ka fiirinayaa trend line la ii jabiyo sidoo kalena zone la ii jabiyo ama haddii weak rejections aan helo toos baan u qaadanaya haddii kalena haddaan flag helana waa kasii fiicanba marka structure-kii baan wax dhahay halkan qaab noocee la igu yimid waa ujeedaan 1 iyo 2 iyo 3 baa la igu yimid 1 iyo 2 iyo 3 haddaad 1 iyo 2 iyo 3 hadhiin waxa dhahaysaa descending baa la igu yimid baa dhahaysaa ujeeda trend line-ka la jabiyay trend line-kii baa la jabiyay trend line-kii markii la jabiyay tan oo kale anigu ma galayn maxaa yeelay wax test ama helin waa in halka waxa weeye test la igu sameeyaa barta waa in test marka lacagtan kala soo bixiyo momentum badan bay lahayd momentumkeeda aad u badnaa halka waa in test la igu sameeyaa laakiin haddaad si fiirisid 5 minutes oo kale entry waa ka heli lahayd entry laga yaabaa inaan ka heli lahayd lacagtan aad bay asbuuc dhaweyto u dhaqaaq meeshaan oo kale waxa weeye testiga yarka bay samaysay waa laga geli karay laakiin waxa weeye 1 hour ka 15 minutes oo kale kaga fiicnaa meeshaas laakiin qasab kule test way samaysay insha Allah waxa weeye scalp strategy-na waa soo wadaa insha Allah haduu lahaydmo hadda 4 hour oo kale GBP USD hadda fiirisid taasi qurux badan u fiirisid fiiri trend line-kaasi ku socotay halka waxa weeye markay mareysay meeshaan lacagta markay mareysay fiiri trend line bay halkan ka abuurtay trend line bay meeshaan ka abuurtay ujeeda trend line caadi ah oo qurux badan bay meeshaan ka samaysay trend line-ka samaysay fiiri sidoo kale waxay mareysay daily markaa fiirisid dailygaas waa la iska fiiriyaa markii meeshaas kula ay marayso ujeeda lacagtan zones bay ku socotay zone to zone bay ku socotay halka hadda waa la jabiyay fiiri meesha markii la jabiyay intii waa ka heli lahayd horta test caadi ah lagu sameeyay area markii la jabiyay test waa lagu sameeyay laakiin testiga shuruudii waan ka fiirinaynaa markii lagu soo laabto waa maxay waxaan tegayaa 4 hour kan tegayaa 4 hour ka fiiri 4 hour kan waxaan ka fiirinayaa meeshaasi caadi ah haddaan u saaro ilaa weak rejectionskeeda 1 hour kan tegayaa qaab flag ma lagu soo laabto meeshaasaan dhahayaa yes qaab flag lagu soo laabto waa maxay test baa lagu sameeyey waxaan sameynayaa halkaa haddaan weak rejectionskeeda waa ka gelayaa haddii kalena trend line-kaygaasaan u saaranayaa trend line-kayga markaasaan u saarta markii la ii jabiyo
سامرك اللي يجي بيان قليا سمارة تبالي تبي 15 minutes كان تجيا 15 minutes كوين أنا تست كيلا تست وين أنا كيلا 15 minutes كوحوي تست ما كيلا قروح بان ضعف في رسان ما محي أو جدا يريد التبي بارتس الوسبي ولا تبي لاستي لور هاي بالتبي هلو سو لابتي تاسا وحوي بالواعد سوق وحوي حدي زونسك فهمتين marka structure-kiina aad taqaanin waxa weeye waa ka qabsanaysaa hadda maalin weeyto golliga mar aan qaadanayay waxaan ku qaatay 5 minutes baan ku qaatay golliga xagee kaga qaatay golliga haddaan fiirino meeshaana waxaan ka qaatay mar halkaana waxaan ka qaatay isagoo maraya bambay uga qaatay waxaan ku qaatay waxaan fiiriyey suuqu wuxuu sameeyey meeshaan waxay ahayd low bay ahayd lowgii waxa weeye suuqu kor buu u jabiyey meeshii halkaan mar buu ka soo daatay laakiin markii dambe waa la jabiyey kadib lowgii baa lagu soo laabtay lowgii qaab noocyo lagu soo laabtay qaab waxa lagu soo laabtay correction baashidan soo qaadanaya zoonkayga saasaan u dhiganayaa correction baa lagu soo laabtay correction markii lagu soo laabtay fast candle anu meelahaasaan ka helay 5 minutes baan ku qaatay waxa weeye 5 minutes ku kala daadaan tagana meeshaan ka qaatay horta hadda candleka calaamadaysan baa ka qaatay candleka ugu horeeyay markuu dhacay baan qaatay waxaan ogaa waxaan inay yihiin inay flag yihiin maadaama zoonkii mar labaad dib loo soo jeediyay taasaan bay uga faa'iidaystay kii kalena muxuu samayn lahaa candlekaas markii saa loo tago tastigaas waxa way ka faa'iidaysan lahaa marka waxaan rajeynayaa in si fiican u fahanteen euro USD oo kale haddaan hal mar fiiriyo euro USD haddaan hal mar eegno kale waa intii oo kale suuqu waxa weeye waa zem suuqu waxa weeye mar walba wuxuu ku tusayo ku trade garee dhihin fast flag baan ka sugayaa zoniska suuqa ha iska indhatirin zoniska suuqa ha iska indhatirin lacagta markii meelaha marisay aan dhalinyarada la soo wadaagay waxaan isku dhaweyto meelahan iyada marisay waxa weeye maasha Allah dee qofkii ka faa'iidaystay laakiin lacagtan waxay samaystay anaga asal bay nooga dhacday meelahan asalkaygu yaalay way ku dhacday waxa weeye kadibna way soo laabatay news baa jira newska iga saaray marka laakiin waxay samaysay trail line-kaasay jebisay tasti bay xagee ku samaysay meeshii waxa weeye zoonkii bay tasti ku samaysay marka laakiin anigu maxaan sugayay waxaan tegayaa marka fast waxaan tegayaa daily time frame aan tegayaa daily time frame zoonka la joogo waa kee zoonkana la joogaa maxaa laga sugayaa buy baa laga sugayaa buy haddii laga sugayo meesha qaab nooc ayaa lagu yimid 1 iyo 2 iyo 3 baa lagu yimid ama descending baa lagu yimid bas ka dhahaysaa 1 iyo 2 iyo 3 baa direct si fiican uma si fiirinaysa baa direct waa muhiim ma ah zoonka ku muhiimsan kadib maxaa iri isbuucii dhaweyd oo kale tan ba aduna tan ka faa'iideysan ba tan halkan waxa la jibiyay trail line-ka ma la jibiyay trail line kii 1 iyo 2 iyo 3 ga la jibiyay 1 iyo 2 iyo 3 trail line-ka markii la jibiyay maxaa dhacay sidoo kalena zoonkii soo hadaan hadda mar labaad aan fiiriyo halkan si qurux badan hadda aan soo warano kale maxaa dhacay saa markii trail line-ka markii saa loo jibiyay waxaa dhacay fiiri festival maxaa lagu sameeyey zoonkii la jibiyey meeshaan zoon buu ahaa baan ku yiri zoonka waa laga soo daadan karaa inta lagu laabto waa laga soo daadan karaa laakiin dib baa loo jibiyey dib marka loo jibiyo soo laabashada ka qaado waxaad tegaysaa 1 hour tag 1 hour ka fiiri waxa weeye rejectionska ka fiiri rejectionska waa hesh halkaasaan ka qaadanayaa ama maxaan sameynayaa ama waxaan sameynayaa caadi 15 minutes flag baan tegayaa haddaan baqayo 15 minutes flag baan kaga qaadanayaa see ku qaadanayaa fiiri 15 minutes flag baan waxaan ka sugayaa in something oo kale la ii jabiyo aan break and test yar aan ka helo haddaan rabo aan ka fiirinayaa waa maxay trail ma soo qaadanayaa markas waxaan ayaa waxaan waa flag fast flag baan helay markas register-kaga adeegsanaya kadib fiiri waxa dhacay trail link waa lagu jabiyay sidoo haddana test waxa lagu sameeyay area la jabiyay boom halkaas ka qaadanaysaa waxa weeye intaas ka faa'iideysanaysaa marka guys waxaan filayaa inaad fahanteen insha Allah waxaan soo wadaa my scalping strategy ma soo wadaa oo aad maalin kasta golli iyo waxa weeye start iyo lacagaha dhan GBP-yada waxa weeye kaga qabsan ka dhaan faa'iido la taaban karo oo waxa weeye maalin walba profit kan la baxaysan ilaa 5 minutes
ilaa 15 minute ba waxa weeye intee kaga qaadanaysid soo wada insha Allah marka guys waxa weeye ilaa unina inaad channelka subscribe noo saartaan insha Allah waxa weeye waxyaalo badan oo in qanciyaan soo wada waxaan rajeynayaa in waxa weeye aad ka faa'iidi doontaan wuxuun aad ka faa'iidi doontaan insha Allah waxaan soo geliyo meeshaan waana hubaa inay tahay istiraatiijiyada isku halayn karo anigu aan adeegsado 100% profit aan ku sameeyo adinkana waxaan rajeynayaa sidoo kale inaad profit ka samaysaan marka guys haddaad ku cusubtahay channelka waxa weeye subscribe saar insha Allah waxaan soo gelinaa la soco alhamdulillah asxaabtaadana u share gareyn السلام عليكم ورحمة الله وبركاته